بسم الله الحمد لله waxaan insha allahu tacaala maanta aan ka hadli doonaa haddii ilaah yiraahdo waxyaalaha dumarka khuseeya qaybta dhalamadoo kale waxyaalaha ka khuseeya dumarka iyo cudurrada laga yaabo qofkaas oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay in uu wax abuurmo oo wax dhalo ciladaha keeni kara inay yacni maaragtay cilad u keenaan oo laga yaabo inay ka celiyaan ama ka daahdo dhalmadu qofkii aan cilad qabin oo caqiim ahayn waxaa dhici karta haddii haweentoo kale infectionku ku weynaado runtii waa dhici kartaa inay dhalmadaasu ama ilmahaasu ay kasoo laabtaan waxaa kaloo jirta wax la yihahdo umusibyaan oo runtii wax aada u dhib badan ah oo dumarka aada ugu dhacda ragga boqolkiiba hal bay ku dhacda saan daraasad ku hayno laakiin dumarkay u badan tahay haweenta waxaa laga yaabaa marka ay shukaansanaysay maxaa yeelay dumarka markay gabdho yihiin rag badan baa laga yaabaa inay doonayaan inay guursadaan marka waxaa laga yaabaa iyadoo kan la hadlaysay oo kan la hadlaysay oo kan la hadlaysay in ilaahay subxaana wa tacaala kii ugu talagalay calafka ay hesho iyadoo kuwo kale ay fiirinayaan oo isleeyihiin adaa gabadhii qaban doona ama adaa gabadhii heli doona taasu marka waxay kaliftaa in badan in qof uu ka naxo tusaale ahaan uu kaa naxayaa ninkii kale markii la yihahdo hebel baa guursaday taas waxay keentaa inay samaysmato marmar umusibyaan wax la yidhaahdo oo ishii qofka ku dhacay naxitaankii uu ka naxay laga yaabo inay ku timaado inay ku abuuranto oo ku samaysanto umusibyaan wax la yidhaahdo waxaa kaloo dhacdo oo ay ku dhici kartaa in sixirba lagu sameeyey loogu talagalay haweentaasu inayna dhalin ama qofkaa ayna la wadaagin nolol fiican taas waxay keenaysaa markaa in iyadana uu qofkaas ku sameeyo sixir la yidhaahdo sixir umusibyaan kabacdina ay sidaas qofkii isku seegaan inay wax isu dhalaan calaamaadka marka lagu dareemo waxaa ka mid a qofkaas inuu bahashaa qabo intaynan infectionka u gelin iyo dumarka waxyaalaha keena inay dhalmada ka manciyaan jeex ayaa qofka xanuunaya dhinac baa xanuuna labadiisa dhinaca midig ama dhinaca bidix dhinac baa xanuunaya waxay kaloo dareemaysaa haweenta iyada ah in caloosha ay soo dibirto yacni dibiro oo kale inay dareemayso inay caloosha soo yaro weynaanayso waxay kaloo dareentaa in caloosheeda ama wax ka dhaqaaqaan ama wax ka qaniinayaan waxay kaloo dareemaysaa intaa wareega meel ka mid a inay sidii infection oo kale looga hayo waxay kaloo dareentaa inay naxdin marmar hurdada kasoo naxdo waxay kaloo dareentaa marka caadadu ay u imaanayso haddii baashaasu ay jirto inay naaso darar ama naasuhu ay yaro xanuunaan taana waa lagu gartaa runtii wax walba oo amraad ah culummada ama dadka caadiga ah ee barnaamijkan ku dhex jira waxay u diyaariyaan wax ay laga yaabo inay u tahay mufiid in jirka bini aadanka ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga safeeyo masiibiyaanta intaasaa lagu gartaa waxaa kaloo ay sameysaa ilmaha haddiiba ilmo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyo haweentaa 3 bilood 4 bilood ilaa 7 bilood ayay kusoo ridaa marmar waxaa dhici karta in haweentu uur iska yeelato sidii walac oo kale ay noqoto laakiin ayna walacna ahayn uurna lahayn hawa ay ka buuxdo laakiin iyadoo isu malayso inay uur leedahay oo xaajiga ay uur u qaaday waxaa kaloo laga yaabaa inay samayso umusiibyaantu dareenkii haweentu ay lahayd inay baabiiso islaantii shalay dareenka lahayd ee maasha allah ahayd ee ninkeeda u xisaysay inayba dhibsato ninkii isagaa markuu soo aado taana way samaysaa waxaa kaloo manciya runtii infectionka hadduu qofka ku weynaado haweenta infectionka hadduu ku weynaado iyadana waa wax dhici kara in runtii ilmahaasu ay soo dhacaan infectionno soo ridaa jira waxay kaloo dhacda in burobiyood ay ku taallo haweenta oo infectionka intuu weynaaday inuu ku noqday burobiyood ama buro caadiya u noqday iyadana runtii waa wax manciya in qofkaas uu dhalmo hore u qaado waxaa kaloo ka mid a umusibaantu ay sii samaysaa biyaha ninka waxaa looga baahan yahay 1 milyan oo cayayaan inuu haweenta ku shubo oo markay kulanka samaynayaan waxaa laga yaabaa 500 oo kale inay qabato ilaa wuxuu wax nolol leh oo qof caadiya laakiin ma arkayno inagu ma jeedno ilaahay baa inaga qariyay subxaana wa tacaala marka waxaa laga yaabaa inay ninkiiba intaaban makaankii biyihii gaadhin oo meeshii loogu talagalay gaadhin waxaa laga yaabaa inay 500 ay cayayaankii qabato oo haweentii sidaas uur ay ku qaadi weyso oo kooramkii loogu talagalay
in cayawaankaas oo ku gaadho ay ku gaadhi weyso meesha loogu talagalay. marka infectionkaas oo kale iyo brobiyoodka haweenta qoyaan baa markuu ku dhaco qoyaan baa laga yaabaa weliba kalaro leh inuu ka yimaado haweenta uu ka yimaado. marka dawo waxaa jirta la yidhaahdo fitol oo la isku shubo oo runtii aada muhiim u ah. dawadan waxaan u malaynayaa Japan inay soo saaray, waddanka Japan la yidhaahdo inuu soo saaray, laakiin haween badan baa ilaahay subxaanahu watacaala yani maaragtay wixii ay raadinayeen caadada khaldanta, infectionka gudaha, dhiqitaanka intaas makaanka iyo tuubooyinka, wixii ka khaldan intaas oo dhan waa lagu shubayaa. habeenkaasay ku seexanaysaa ilaa 7 habeen 8 habeen bay qaadanaysaa oo 3 habeen u kala dhaxayso waqtiga ayna caadada lahayn. waan tilmaami doonaa sida la isugu shubo iyo waxay iyadu ka samaysan tahay. waa wax aada loo soo adkeeyey, waa wax lasoo diyaariyey, waa wax 3 qolof bay wadataa sida loo ilaalinayo. runtii waxtarna way leedahay oo dadkii dee isku shubay dumarka unbaa sheega muhiimadda ay leedahay. iyagaa soo sheega markay qaataan wixii ay ka arkeen siday u anfacday way raadiyaan. markay raadinayaan soo laabtaan baan weydiinaa waxtarkeeda iyo siday wax ugu tartay. qoraalka meesha lagu qoray dhib ma laha, laakiin muhiimaddu waxay tahay tajriibada la sameeyey wixii dadku ay ka sheegeen inaad dadka weydiiso oo aad adigu ogaato. iska dhaaf qoraalka qofkii soo qortay waxaa laga yaabaa inuu dee qoraalkiisa fiicneeyo, laakiin tijaabada marka la sameeyo markaasaa la ogaan karaa waxtarkeeda. dadkii qaatayna waxay noo sheegeen hooyooyin badan baa qaatay, kuwa caadadu ay dhibaysaa qaatay, kuwa caadadii iska waayaa qaatay, kuwo infection dilay baa qaatay. run ahaantii aada iyo aad baa ilaahay subxaanahu watacaala ay ammaan uga sheeganayeen oo ilaahay ku cafiyey subxaanahu watacaala. marka waxaa la yidhahdaa fitol, meesha haween baa ku sawiran, waa lagu talagalay intaa gudahoo dhan dhexdaa ayay nadiifinaysaa. bal iyada aan furro marka insha allah. marka ugu horeysa waxay ku jirtaa bahalka waxayna u xidhan tahay 3 xabo, 3 xabo ayay u xidhan tahay. xabo ayay u xidhan tahay. marka waad galka weyn aad ka soo saaraysaa, gal kale kusii jirtaa oo laga sii saarayaa, gal yara haddana mid kale kusii jirtaa oo laga jeexayaa. kabacdi waxaa la soo saarayaa silingo ay ku jirto dawadii. silingahaas ayay dawadii ku jirtaa. dawadan maasha allah waaye, dadkii tijaabayaana sheegay, sababtoo wax dumar lagu shubayo waxaan anigu ogaan karo maaha, laakiin waxaa ogaan kara keliya haweenta isku shubtay ee isticmaashay ee loo sheegay mufiid inay leedahay, taasunbaa ogaan karta. inta feedback ay ka keenayna maasha allah weeye. saasaa loo furayaa, furkaasay weliba kusii waxaysan tahay. halkan waxaa ku jira bahal yar oo runtii lagu xafiday oo fur damba ah, kaasaa laga furayaa. kaa marka laga furo waxaa markaa ay diyaar u tahay haweentu inay isku shubto. haweentu dabcan way seexanaysaa, markay seexasho ilaa waxaa lagu shubayaa meeshii jamac uu ka dhacayay ayaa lagu shubayaa xubinteedii taranka. marka lagu shubayo waxay noqonaysaa in waxaa halkaa dalool yar baa ku jira. markay baashi diyaar u tahay haweentii insha allahu tacaala isdiyaariso, qaybta taranka ayay isaga shubaysaa, si caadi ugu shubaysaa insha allahu tacaala. waxaan ku shubi doonaa oo waan qasaarin doonaa dawadan, isla halkan aan ku shubi doonaa sida loogu talagalay, ama halkaasaan ku daadin doonaa si haweenta ugu dhaco gudaha. haweenta habeenka xaajigeedu wuu isticmaali karaa, wuxuuna dareemi doonaa qoyaan aada u fara badan, wax dhiba ma laha insha allahu tacaala. wax loo diidan yahayna ma laha. waxay baabiinaysaa brobiyoodka, waxay baabiinaysaa infectionka, waxay baabiinaysaa qalaylka badan. wixii gudaha ku jira tuubooyinkay furaysaa maasha allah, waana saasay ugu shubaysaa. gudahii aada aniga daadiyey, gudihii iyagoo ku dhaco kale. waana mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmat ullahi.